bay u dheer tahay waxa uu yiri waxaan ahay aabba Soomaaliyeed marxaladeeduna waa sidan ayuu yiri xaaskayga waxa ay xujo iga dhigtay yiri inaan bixiyo ama baan siiyo wax far badan oo mushaarka biilka ah ka badan oo lacaga isla markaana waxa ay markaasi ka badan oo lacaga taa oo markaasi noqotay kelid oo aan awoodi waayay keentana hadii aan muxuu ahaa lacagtaasi ka tirada badan biilka oo gooniga ah oo ay malaynayso in xaaska kale ee bahyarta aan lacaga kala siiyo dheeriya ay keentay in sariirtii waliba jamaaca ay muxuu ahaa ay diido waxa ay noqotay ay yiri inaan awoodi waayo lacagaasi waan isaga aamusay taana waqti sanad ka badan ayaa ka soo wareegatay waxaana sameeyay ay yiri caruurteeda ayaan iskala seexdaa dhowr jeerna waan isku dayay waan awoodi waayay su'aashu waxa ay tahay muxuu ahaa iyadoo aan ogahay in arrimahaas ay dambi yihiin oo igu socdo oo ay ii muuqato haddana maxaan dambiyo gaar ahaan aan u leeyahay alxamdulilah ninku laba xaasiya hadduu leeyahay ka badan xuquuq bay ku leeyihiin cadaalad baa laga doonayaa ilaahina subxaana wa tacaala sidaasuu amray oo falaa tamiiluu kula almayli waa kii la yidhi qofkan cadaalad samayn karinna guurka labaad inuu iska daayaa sharcigu amray fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida cadaaladda waajibka kuwaa ninka inuu ka soo baxo weeye gabadhuna xaqa ay leedahay dalbashadiisa iyo raadsigiisa inay ku ekaato wey haddii xuquuqdii iyo masaariifta ee waajibaadka ahayd intii karaankiisa ahayd uu bixiyo dee sidan uu sheegaya hadday jirto dalabkaa gabadhu ma bannaana isaguna wixii dheeraadee siisma ah inuu cadaalad sameeyo guud ahaan waa laga doonayaa iyaduna danni iyo mala iyo tuhun dartii uma bannaana gogoshii iyo xuquuqdii laysku lahaa inay u diido iyadoo masaariifteedii iyo xuquuqdeedii iyo masaariifteedii ku haysata xaqeediina uu gudanayo uma bannaana haddii sidaas saa'ilku uu u sheegaya ay u dhacdo isagu dembi waxba kuma laha laakiin iyada dembi baa ku socda inta ay diidantahay gogoshiiyo reernimada iyo daacada iyo wixii macruufkaa in la kala maqloo loo kala dambeeya ay diidan tahay iyadaa dembi ku socdaa isagii dembi laguma laha waa sida uu u sheegayo hadday tahay dee hadduu wax ka gadisnaadana wixii ka duwanaadiya saamayntuu xukunka ku yeelanayo baa eegis u baahan waxaanuun dhihi lahaa iyadana ilaahay u bari inuu dembigeedana dhaafo soona hanuuniyo adiguna wixii rifqa iyo toritaana ku dadaal maadaama meesha ilma joogaan xaaladahaasna wixii ahal iyo qaraabo ah eed isleedahay waxbay ka maqlaysaa nusxigooda iyo taladooda u kaasho bilahi towfiiq jazaak allah daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka kulanka Shibli waa barnaamij diini ah oo toddobaad walba aad kala socotaan Somali Channel waana xalqadii 24aad su'aalihiina waxaad inoogu soo gudbin kartaan ciwaanada barnaamijka oo kala kulanka Shibli at somalichannel.tv iyo ciwaanka kale ee Facebook oo ah Somali kulanka Shibli iyo Somali Channel waxaana inta badan khayr la siiyo su'aalaha aad soo weydiisaan jawaabo waafiya ka bixiyo Sheekh Maxamuud Shibli asaahate waxaan idinkaga codsanaynaa su'aalaha inta badan soo noqnoqday in ku aadan arimaha qoyska iyo kuwa ku aadan guurka iyo qodbasirada iyo su'aalaha inta badan soo laabtay dadka ku taxan barnaamijka inta badan ay ka faa'iideystaan waxaan codsanaynaa in ay noqdaan su'aalo cusub oo ay bulshada Soomaaliyeed iyo daawadayaasha Somali Channel ay ka faa'iideystaan si barnaamijku uu noqdo isla markaana ay fursad u helaan dadka kale ee aanan muxuu ahaa barnaamijka hore ka qayb qaadan su'aalahoodana aan soo gudbisan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa daawadayaasha su'aalaha inoo soo gudbinaya in su'aalaha ay soo koobaan si barnaamijka uu inoogu koobmo su'aasha kale sheekh